khaliif shire muuse oo la guddoonsiiyey abaalmarinta Lifetime Achievement Award wuxuu ciyaaro kala duwan oo u matalayo xulka qaranka Soomaaliya ugu soo saftay gudaha iyo dibadda wuxuuna u soo ciyaaray naadiyadii heerka koowaad ee dalka ka dhisnaa sida dekadaha Horseed iyo Jenyo sidoo kale waxa abaalmarino la siiyay ciyaaryahano iyo dad door weyn ka soo qaatay horumarinta sportiska waxaana kamid ahaa ciyaaryahano lagu soo ababiyay ciyaaraha tan iyo markii ay yaraayeen oo la siiyay tababaro kala duwan oo lagu tilmaami karo mirihii ka dhashay barnaamijka horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah Ramla Maxamuud Xuseen Cabdullaahi Sabriin Cali iyo waliba hooyo Maria Farax waxaa sidoo kale goobta ka dhacday xil wareejin taariikhda gashay oo noqotay midii ugu horeysay ee qof xil u haya bulshada in uu ku wareejiyo mas'uulka cusub ee xilkaasi la wareegaya taasoo ah abaabulida diyaarinta qabashada ciyaaraha sanad kasta lagu qabto gobolka Minnesota ee lagu maamuuso xuska maalmaha Soomaalida Somali Week xil wareejinta uu sameeyay aadan ugaas ayaa ah mid tusaale u ah in qof kasta uu wareejiyo xil kasta taasi oo ah mid ku dayasho mudan mas'uulka xilka lagu wareejiyay ayaa waxa lagu magacaabaa Ciidruus sheekha kulay dad badan waxa laga yaabaa yaqaanana way jiraan dad badan oo aqoonina way jiraan ilmaha say walaahiga ama qurbaha ku koray ama kubadda kolayga marka laga sheekeeyo ama hooyooyinka carruurtooda kabaha u gada Jordan en 23 ku yaalo waa Jordankii Soomaaliya alxamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin amma ba'd markuu horeysa dhamaanba marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bacdi salaam waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore dhalinyarada barnaamijkan isku soo abaabusha gaar ahaan aadam ugaas iyo dhalinyarada kale ee la shaqeysa dhamaantiinba waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin sanad walba dadaalka iyo juhdiga aad gelisaan barnaamijkan runtii qiimaha badan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan waliba soo dhaweeyo anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda gobolkan Minnesota iyo magaca bahda sportiga ee gobolkan Minnesota dhamaantoodba inaan soo dhaweeyo walaalaha sportiga ee noo karimid meelo kala duwan oo Mareykanka kamid ah waliba magaalooyinka Ohio Columbus Virginia Boston Atlanta Georgia dhamaantoodba inaan iraahdo soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkan Minnesota intaasi dabadeed caawita waxaan la jooga sida hore looga dhawaajiyay halyeeyigii Soomaaliyeed waliba marka laga hadlayo ciyaaraha sportiga ciyaaraha single-ka shakhsiga maanta inuu ugu magac dheer sportiga Soomaaliyeed Cabdi Bilaa Cabdi ayaa caawa halkan jooga oo isagu laba jeer ku guuleystay ciyaaraha adduunka waxaan filayaa caawin oo iga mudnaa stage-ka inuu yimaado asaga marka insha Allah waxaan rabaa inaan ka hadlo halyeey runtii aad iyo aad inoogu dheer halyeey anigu aan waliba si aad aan saaxiibo u ahayn halyeey qaran oo waliba isku kalaab aan ahayn oo lagu magacaabo Khaliif Shire Muuse oo inoogu yimid magaalada Virginia marka taariikhdiisii oo aad u fog waxaan rabaa inaan in yar ku soo koobo hadii aan la yiraahdo Khaliif waxa uu ku dhashay gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo sanadku markuu 1962 waxaanu ku barbaaray isla magaaladaasi halkaasi oo ahayd meeshii uu ka bilaabay dugsigiisa Quraanka dabadeedna waxbarashadiisa maadiga ah dugsigii hoose iyo dugsiga dhexe waxa uu ku dhameystay isla magaalada Kismaayo dugsiga sagaran waxa uu kaga baxay magaalada Muqdisho gaar ahaan iskuulkii la oran jiray 15 May sportiga ayuu waxa uu bilaabay isagoo runtii aad iyo aad marka u daayaraa waxaan uu tagi jiray sidoo uu sheegay xeebtii Calaley jiray Kismaayo halkaasi uu aad u koobiyeen jiray ninuu aad u jeclaa qaab ciyaareedkiisa oo la oran jiray Baashi Carab oo isagu marka xariif ku ahaa kubadda cagta waxa uu ahaa role modelkiisa ugu horeeyay markii uu yaraa ciyaaraha uu mataqaanaa bilaabay hase yeeshee waxa uu sheegay in ciyaaraha ay aad ugu dhiirigeliyeen Allah u naxariistay nin la oran jiray laba nin oo mid Allah u naxariistay loo oran jiray Cabdi Casiis Xaaji Jaamac oo ku magac dheeraa Gulta
iyo macalinkiisii ciyaaraha gobolada macalin Cabduqaadir Maxamed Cali Qariidi oo caawana la joogo macalin Qariidi macalinkiisii gobolka Jubbada Hoose 1978 ayuu wuxuu u saftay ciyaarihii gobolada oo markaa uu macalin Qariidi u daadihinayay labadaas sanadkii hore 78 waxa ay ku guuleysteen kaalinta koowaad sanadkii xigana kaalinta labaad ay galeen oo gobolka Banaadir ayaa ka guuleystay waxa kale oo Khaliif markii uu yimid magaalada Muqdisho uu ka qayb galay ciyaarihii dugsiyada ee gobolka Banaadir isagoo markaa u safnaa dugsigii 15 May waxaana ay ku guuleysteen kaalinta koowaad ciyaarahaas ayaa waxa kala qayb galay markaa ciyaartooy qiimo ku lahaa kubadda cagta oo heerka koowaad ahaa oo la kala oran jiray Xasan Yare Xarbi iyo Cali Quluuf xirfadiisa ciyaareed markii la arkay ciyaaryahan ka isaga ahaa Khaliif Shire Muuse ayaa waxa dhacday in hardan badan uu dhacay oo kooxihii heerka koowaad ee dalka ka dhisnaa ay ku hardameen waxa nasiib u yeeshay in sanadku markaa 1980kii uu u wareego kooxdii heerka koowaad ee naadigii dekadaha la oran jiray ama badda waxaan uu la qaybsaday isla sanadkaasi guulo fara badan oo ahaa koobkii General Daawud iyo koobkii horyaalka ee dalka 1984 sidoo kalena waxa guulahaasi kala qayb galay oo runtii aad u amaanay kooxdiisa daafaceed ee caanka ahayd ee aadka loo yaqaanay ee la magac baxday Shanti Masheexdo iyo ciyaartooy runtii qatar ahaa oo weerarka kala ciyaar jiray oo kamid ahaa Axmed Ismaan Geedi oo magaalada Andara degan hadda Xuseen Fuuqa iyo Sayid Cabdi Xaaji oo dhiraa Sayidkay 82kii ayaa waxa loo magacaabay inuu ka mid noqdo ciyaartooydii xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaan uu ka qayb galay ciyaaro fara badan oo caalami ah oo East and Central Africa iyo wadamada Carabta ka dhacay waxaan uu ciyaaro u aaday wadamada Masar, Oman, Uganda iyo Kenya sidoo kalena waxa uu kooxihii Genyo iyo kooxihii Horseed uu kala qayb galay ciyaaro caalami oo aad u fara badan Khaliif Shire Muuse oo isagu nambarka 11aad ee weerarka ka ciyaari jiray mar aan wareystay ciyaarihii ugu dhibadnaa ama dhibaatooyinkii ka soo gaaray sportiga wuxuu aad uga sheegtay difaaci fara badan oo naadigii Horseed kamid ah sida ninkii loo oran jiray Ibrahim Dajuma oo isagu hadda uu yiri xataa dhaawacii uu gaarsiiyay waqtigaas ciyaaraha ku jiray ilaa hadda waa ay ka muuqdaan garbeyga sidoo kale waxa uu amaanay Shaash Saciid Ciirow iyo Nuur Qolocow oo uu ku tilmaamay inuu ahaa difaac aad u culus isagoo waliba ku sifeeyay inuu ahaa qof aad u culus laakiin aadan meelna ka aadi karin kaas oo kale ugu dhib badan amana qof aad u culus oo kula joogo hadana meelna aad ka aadi karin marka waxa weeyaan oday waa la dhibaa amana aad loo dhib waaya mar uu iga sheekeynayay ciyaarihii ugu xumaa uu ciyaaro ama uu la kulmay ayuu wuxuu sheegay in kooxdii Masaarida ee Al-Ahli ay la ciyaareen magaalada Muqdisho inay barbaro ku kala baxeen laakiin markii lagu ciyaaray magaalada Qaahira in ciyaartaasi hal iyo eber looga badiyo oo waliba waqtigii dheeraadka ah sidoo kale wuxuu sheegay ciyaartii ugu wanaagsaneed oo uu ciyaaray inay ahayd ciyaar ay kula ciyaareen magaalada Muqdisho koox ka socotay wadanka Jarmalka oo galabtaasi Khaliif oo runtii wacdaro badan uu muujiyay taasoo ay qireen waliba macallimiintii Jarmalka iyo ciyaartooydii Jarmalka ka timid ay u qireen inuu ahaa ciyaartooyga ugu xirfadda badnaa ee soo mara dalka Soomaaliya Khaliif haatan waxa uu ku nool yahay magaalada Virginia Steen waa icon-ka maanta nool ama dadka sportiga ee kubadda cagta soo maray dalkeena ee runtii aad iyo aadka runtii loo qiimeeyo waxaan u rajaynaynaa dii alla yiraahdo cimri dheer cibaado suuban iyo caafimaadsan intaas dabadeed waxaan jeclahay inay ila soo dhaweysaan walaalkeena anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Minnesota iyo jaaliyadda sportiga inta ila soo dhaweysaan walaalkeena Khaliif Shire Muuse Khaliif soo dhaw السلام عليكم runtii aniga awada farxad weyn ayay ii tahay qabanqaabadan awada ardaygayga aniga maanta yani lagu siinayo yani lagu sharfayo runtii waxa waaye waa mid aniga magacayga aniga ka turjumaysa waay marka hambalyo ayaan leeyahay ciyaartooygayga midda kalena waxaan rabaa inaan kugu daro taariikh ahaan 3 nin oo asaga 2 nin kale asaga la dhalatay ayaa ciyaaraha gobolada aniga ii saftay marka
waa family wuxuu ka soo jeedaa ayaka dhan wada sportiyo ka soo jeedaa marka xafladda cawada halkan lagu siinaayo runtii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa amri dheer in ilaahay siiyo hadiyada intaan la siinin oo halyeeygeena sportiga cabdi bile cabdi uusan guddoonsiin qaliif ayaa raba inuu laba hadal oo gaaban yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii arrinkan ma filayn dad badan oo iga mudan ayaa jira oo wali nool laakiin waqtiga ii saamaxaysiiba coronavirus dad badan u diiday inuu wadanka soo galo runtii waxaan rabaa wax yar inaan xasuusiyo bahda sportska meel kasta ay adduunyada joogaan ogaada shalay garoonka markaad gelaysay Soomaali baa ku sacabtumaysay garoonka ku soo safanaysay Soomaali ahaayeen kulligiin waa wada dareemi kartaan markaad makhaayad aad tagto cunto aad ku cunto lacagtaada waa la dhiibay cid dhiibtana ma taqaanid Soomaaliya dhiibtay laakiin waxaan ka codsanayaa bahda sportska maanta adduunyada ku nool ogaada reer hebel inayan ahayn dadkii shalay ku taagnaa Soomaali ahaayeen kaana Soomaali kaama mudna inaad maanta aad dhahda kii shalay ku sacabtumayay qadadaada bixinay quraacdaada bixinay inaad dhahda aniga reer hebel baan ahay idin ma aqaano kaama mudna marka waa inaan xaqooda gudnaa Soomaali inta aan noolnahay sportiskana dadku way isu keenamayna dadka ma kala diro macallin qariidi isma aqoon xamaru nooga yimi kismaayu ugu yimi way soo dhaweey sports igu soo dhaweey wuxuu igu soo dhaweey kubadda aqoontaan u leeyahay iguma soo dhaweyn inaan qaraabanahay aan isu dhownahay kismaayo isku baranay marka walaalayaal waxay idin ka codsanayaa dadka sportska noocay doonaan ha ahaadaan meel kasta adduunyada ay ka joogaan waxay idin xasuusinayaa inaad dib u go'ataan waxaad Soomaali ka soo marteen dhidid Soomaaliyan ku soo kornay dhacaankooda iyagoona awoodin ay garoonka lacagta ay keenayaan hataa ma ku soo qadeynayaan ma ku soo casheynayaan say u daawadaan idinka dadka garoonka ku jira maanta kaama mudna Soomaali inaad dhahdo reer hebel baan ahay idin ma aqaano taasna lidin kama filaayo inta aad nooshiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta sportkii malaalugaha iyo gamcaha iyo xaqaas un bayba ka wadaane hadalkii waa laga wada baqay waxa ka muuqatay halka Adnaan iyo Khaliif iyo in ay baalki waa laga wada gabaday runtii waxaan halkaysi soo wada taagnay yani runtii taageerada aan u muujinayno dhammaan raggan oo dhan oo aniga in badan waan istaayarayn doona malaacirada waa iska ciracaanoode oo raggan garoomada ku daawan jiray weeye waa maahirows weeye ya waliba macallin qariidi iyo fuundi iyo isfuundi iyo marka laga soo bilaabo Khaliif iyo isku dar runtii aad iyo aad sharaf noogu tahay inta yadana caawa halka isku helay qabaqaabiyaashina aad iyo aad baan aadan ugaas iyo inta la shaqaysaba ugu mahadnaqaynaa runtii Khaliif awoorka caawa la siiyay waxa weeye ciyaartoydii qaranka raggii ugu qiimaha badnaa waana mudan yahay anigu wuxuu ka mid ahaa ciyaaryaha la sii kala jecel dadkan aad iyo aad ka u jeclaabo ka mid ahaa hadana dadkan isku magaalada ahayn Virginia ayuu ka mid ahaa marka Khaliif hambaliyo sportiguna waligii sidan ayuu isugu duubnaanaya inta waxaan ku darayaa horta halkan in badan baa iyo qurux laga dhawaajiyay horta sportigu waa qurux annagu waxaanu jecelnahayna waa qurux waxaanu ka shaqeynana waa qurux waxaanu sportiga u metelaynay waxa weeye qof waliba sida uu jecel yahay caawa xafladda siduu yimi inuu u quruxsan yahay naftiisa iyo dharkiisa iyo wajigiisa uga soo shaqeeyay qof waliba sida uu jecel yahay quruxdiisa credit check hadii lagu sameeyo waa wajigiisa in la arko sida uu qurux badan yahay waxa weeye anagu dalkaygaanu quruxsanaynay
dadkayagaanu quruxsanaynay calankayagaanu qurxinaynay inay mar walba quruxdaasi noqoto dee mid calankayaga aanu qurxinayno mid aanu dalkayaga qurxinayno dadkayaga qurxinayno marka runtii quruxdaa inoogu dadaala waxa weeye dhar kastaynu soo xidhanno iyo makeup kastaynu soo marsanno iyo suur kastoo madow waanu isku soo jaakayno haddaan dalkeennii quruxsanayn calankeenni quruxsanayn ummadeennii quruxsanayn sumcadeennii quruxsanayn waxba maaha ya marka aynu magaceenna qurxino annagu mar walba waxaanu taagnayn magacaa Soomaali inuu qurux leeyahay inuu wanaagsan yahay inuu ixtiraam iyo xushmad adduunka kale yahay ya Soomaal garan calankaaga in la isu taago intaasoo bay ahayd marka aad iyo aad baan idin salaamayaa khaliifna iyo intan raggan qiimaha badan ee xulkii qaranka ee ummadooda iyo dalkooda u soo shaqeeyayna waan u hambalyeeynaya aad iyo aad baan idin salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu